ku-xigeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya ayaa waxa ay qoraal ku baahisay barteeda Facebook iyadoo ka jawaabaysa su'aal uu weydiiyay guule xiriir hore u lahaayeen kana dalbaday goorta ay isguursanayaan balse qoraalkaasi ay ku baahisay barteeda Facebook ayaa hadalhayn weyn ka dhaliyay guud ahaan baraha bulshada. Haddaba qoraalkan ayaa u dhignaa sida tan: waxay tiri xilka iyo xubbiga kala dooro waa qiso dhaba. waxaana qoray taliya ku-xigeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya Janaraal Sakiye Xuseen. waxay tiri wiilaan saaxiibo dhownahay ayaa maalin igu yiri saaxiibay rag badan oo gayaankaaga ah baa guur kuu soo bandhigtay ma iska aroostid. waxaan dhahay bay tiri inaan xilkan hayo iyo inta goor aan xilkan hayo ma aroosi karayo sababa jira awgood. wuxuu yiri maxeerka booliska sidaasi ayaa qaba mise waa jeebkaaga waana buufis badan tahay warka xaqiiqadiisa isii. waxay tiri Sakiya oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya intaan qoslay ayaan ku dhahay niyahow waxaa la aroosi karin inta aan xilkan hayo waa 3 arrimood awgood. 3 arrimood ayay ku soo koobtay taliya ku-xigeenku in haddii nin muxaafid ah aan is aroosno waxaa la leeyahay waxay xilka ku heshay oo ay xilka ku haysataa odaygeeda ayaa tiim nabad iyo nolol ah. hadduu mucaarad yahayna waaba ka fahmi kartaa bay tiri xaalku sida uu noqon karo. qodobka labaad ayay ku sheegtay Janaraal Sakiya haddii nin qaraabada ah aan is aroosno maadaama tolka ay firqo badan yihiin firqada kale aan ka aroosay mooye inta kale way cadhoonayaan. haddaa u cadaalad faro oo wixii qaraabada ah aan ka bootiyo tolku waxay u tegayaan madaxweynaha waxayna ku dhahayaan madaxweyne xilka aadna siisay reer kala ku shaqaysanaya. haddii aan sarkaal iyadoo tiri qodobka 3 haddii aan sarkaal iga darajo hooseeya aan arooso aan guursado waxaa la dhahayaa miskiinka inta ay digtoonow gelisay ayay aqbaltu xoog ugaga keentay. ragga aan isku xilka aan nahay badankood waaba rag i dhali kara oo tabar ma u hayo. inkastoo daahanaan isku dhownahay Janaraal Odawaa haddana iskuma xirnaan karno waayo 2 janaraal oo dabeecad kulul ayaanu nahay. haddaa istagaalnana waxaa aroortii lagu soo toosayaa harimcad iyo gorgor oo dhashiika isla dhacaya. waana la arkay gabar iyo wiil taliyayaal oo ciidankooda ah isdileen iyagoo u kala helinaya mid walba taliyihiisa. sidaasi daraaddeed inta aan xilkan hayo waxaa ii furan oo keliya sabirka iyo soonka waa inaan samro oona soomo ayay ku tiri. dar alle ayuu u qancay wiilkaasi ayay ku soo gaabisay qoraalkeeda taliya ku-xigeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya Janaraal Sakiya. sidaa daraaddeed intaan xilkan hayo bay tiri waxay furan oo keliya waa samir iyo soon. wiilkii dar alle ayuu u qancay bay tiri 3 bilood kadib xalay ayuu isoo wacay wuxuu yiri saaxiibay warka maalinkii hore aad igu dhahaysay ayaan soo xaqiirsaday maanta. oo maxaa dhacay ayaan ku iri bay tiri. wuxuu igu yiri guddiga doorashooyinka oo la isku haystay waxaa ku jirtay gabar sidaa odag oo kale aad u firfircoon waxaana guddiga looga saaray hebel oo ay qaraabo dhow yihiin. ninka mid ahna ragga dalka ugu sarreeya ayaa shukaansada. marka waxaan qirtay bay tiri oo aan qirayaa buu yiri in xisaabtaad isku dhufsatay ay saxan tahay ee markaa xilka ka soo degtid ayaa tartanka Premier League Generaalada aynu sugaynaa. xilka xaragadiisa aragteene baa nala eega xanuunkiisa intaa xil haysid xaalku waa samir iyo soon ayay tiri. marxaladan waa dhib haysata keliya gabdhaha xilalka sarsare haya. ragga dhigaheena ah xaalkoodu waa bay tiri sidan oo kale. marka ma guursan karo ayay tiri haddii aan guursado taliye iga sarreeya ama taliye iga hooseeya waxaa la dhahayaa inta madaxweynaha loo tago booskayga reer ayaa ku shaqaysanaya. marka ma guursan karo bay tiri intaan xilkan hayo
daawade adiga talooyinkan iyo saddexdan qodob ay soo dhigtay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Sakiye Xuseen say kula tahay adiga fadlan commentiga ra'yigaaga noogu reeb.